Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda inshallah meel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Iqra Mutaniyo haddii aan ugu cusub tahay soo dhawo haddii aad noola joogtana sidoo kale soo dhawow mar kale walaalayga qaliga ah haddii aad channelkayga oo hore subscribe u dhihin subscribe ka taabo gambaleelkana furo si uu kugu soo dhaco mar walba videoga cusub aan soo gelinayo haddii aad mahadsantihiin haddii aad videoga ka heshay waa muhiim ha ka ilaawin like-ta inaad saarto like-ta noo saara ha ka xasdina inshallah asxaabtayda channelkayga waa ogtihiin wuxuu ku saabsan yahay timaha skincare-ka iyo waxyaabo kaleeto inshallah kusoo dari doono iclaanka marka maanta waxaan ka hadlaynaa timaha hal maalin sideed wax ugu darsan kartaa soo timaha markay baxayaan qofka bini'aadanka ah waxaa jiro nafaqo la mariyo oo isla maalintaas habeenkaas markaas seexato subaxa kugu darsamayaan iyo bil kadib wax kugu darsamayaan soo marka inshallah nafaqadaas ayaan rabaa inaan idin sheego maanta oo masha Allah natiijada aniga ayaa tijaabiyay isla habeenkii way igu darsamtay indhahayga miyaan dhasarcad miyaa adinkana ila soo tijaabiyay inshallah isla habeenkii inay kugu soo darsamayaan aniga waan tijaabiyay natiijadana waan arkay adinkan markan la garabo inshallah inaad soo tijaabisiin oo natiijadana inshallah comment-iga u soo noqotiin oo asxaabta la soo wadaagtiin أنا ما تجاوي قبل كنت تجاوي قبل إذا هبينكي وحبوا ما درسمين بالجوديس إن شاء الله مركا كنت درسمتها عبر دونا إن شاء الله فلانة دي ودتوا عبري بالجوديس إن شاء الله إذا عبر دونا سيدا ونقطة ويحكوا درسمها أرجنا أنا قال لكن إسله هبينكي ويجوا درسمته سو مركا دتك كنت ما معها مركا إن شاء الله marka hadii habeenka wax kugu darsamo hadana subax kale waa marna inta tira habeenka kale waxa igu darsamo sidaas macquul ma aha waxa loogu talagalay bishii 2 mar bas inaa mariso timaha way ka qalajinaysa marka waxaan ka sameeynaa inshallah fiirsada waa kana waxa u baahan tihiin ukun iyo saliid saytuun waaye marka saliid markaan ku daray kaamirada way gooday marka karaal naqda saliida 2 qando saliid bis waaye iyo hal xabo ukun ah haddii ay timahada badan yihiin 2 ukun ayaa ka dhigi kartaa timahaaga haddii ay normal yihiin halkaad ukun oo kugu filan tahay oo yacni timo yar aa qabtid haddii timo badan qabtid way kugu yaraanaysaa ani timay weela kaatay dadka timaha oo khafiif kale Soomaalikan oo halka xaba naqanayso halka kuwa kula kaanaysa laakiin dadka timaha dhaxda ka badan gabadheeda markaa marnay halka ukun way ku yaraatay saliid ay gadaal timaha ka mariyay saliid caadi ah marka 2 ukun waa qasan kartaa inshallah dadka timaha fuuf ka qaba ayaan ka sheekeynaya okay soo marka kaamirada meel ayaan ka aado maleynaya inta wax soo raadinay because way iska socotaa waxna ma soo galooyaan okay codna waa dul saaraya marka kala la naqda inshallah labada saxaba bis ay u baahan tahay ikata kaamira I come back now okay waan jaray tan soo noqday saliid saytuun waa tan oo jeedin saliid saytuun extra virgin waaye saliid nadiif ah oo walaleefa oo nadiif ka ah hadii ay helaysid waaye hadii aad helaynin saliid kale to qumbo ayaa ugu bedelan kartaa laakiin oliivada waa kuwa muhiim timaha soft ee kaga dhigtaa timaha dhaqso ay bixisaa dad ay aaminsan ogol inay geliso laakiin saliid marka amarsta isla marka aad iska dhaqday ogolku ma gelinayso cilmiga gadaal u bartaa inshallah waxa oo dhiba ma ahan laakiin dad ay aaminsan inay ogol galiso soo marka waa idin dhaay kaamirada in daaranta maleynayay way isjartay marka saliid ukunta waa isku soo garaacay saliid ukun bas wax kale ma ku daraysid inshallah shaamba ayaa timaha kaga dhaqaysaa aniga shaambada waxaan isticmaalaa Herbalife shaambada Herbalife-ka masha Allah timaha way isku dabaridaysaa hadii aad shaambo aad haysanin shaambada Herbalife waa isticmaali kartaa hadii aad shaambada Herbalife-ka inaad isticmaasho oodan haysanin waa lambarka igala soo xiriir waa iga helaysaa inshallah hadii aad shaambo kaleeto aadan haysanin Herbalife-ka oo shaambadana aad muhiim u tahay waxaa isticmaasaa shoulder head shaambada la dhahayo head and shoulder okay taas ayaa isticmaali kartaa masha Allah marka intaas bas ayaa isticmaalaysaa bac ayaa timaha ku xiranaysaa kadibna waa iska dhaqaysaa timaha bac ayaa ku xiranaysaa waa fahamteen oo maleynaya because season kaaga qalalin kadib hal saac bas ayaa ku joogaysaa shaambadaada iskaga dhaqaysaa iyo conditionkaada masha Allah timahaaga subaxii markaa ka soo kacdo cabir koow intaada marana cabir kadibna markaa subaxii ka soo kacdana cabir
meeshay marayso fiiri aniga wax badan way iska bedel waa ark isla markii waxa igu darsamtay 1 inch wax yar adi yani 1 inch wax ka yar waaye laakiin 1 inch camal iska dheh ee u dhowdahay soo indhahayga miya timahayga miya waa aamin waaye marka aninkana sidaas aan laga rabaa ina fiirisin dadka qaar uma darsamaan aniga gabadheeda baa isla tijaabin gabadheeda ma ugu darsaman annaba igu darsamtay soo marka adinkana tijaabiye insha Allah qofka ugu darsamto commentiga hoos ha ku soo qoro durbadiiba sida wax ugu darsamayaan ma sha Allah ku badan waa soo wada insha Allah ayagana oo isla durbadiiba wax ku darsamayaan oo natiijada laga helayo nafaqooyinkayga dhan nafaqooyin oo quality la soo tijaabiyo wahay insha Allah oo la hubo ma aha wax oo iska soo gali ah marka insha Allah hadii aad janaalkeena ku cusub tahay gacmo furan ku soo dhawo qalbi niyad saafi ah hadii aad u baahan tahay shaambada insha Allah igala soo xiriir lambarkan saliidayda hadii aad u baahan tahay sidoo kale ayadana ay la soo xiriir kartaa ma sha Allah السلام انت سيسكوغناني ان شاء الله.